qisadatan waxay ku socotaa gabadh kasta oo doonaysa inay barato wiil la haasaawdo oo ugu tagto meel cidla ah la gooni noqota ku cibro qaada qisadan. waa qiso dad badan ka yaabisay. maxay ku uuraysatay gabadhan? waxaa la dhihi karaa waa gabadh aan nin lahayn laakiin shaydaan uureeyey. dhegaysa bilowga ilaa dhammaadka. gabarh kastoo jecel xiriirka caatifiga ah ama kusoo boodka ah ee aan sharciga ku dhisnayn doonaysa ayay ku socotaa, iyo wiil kastoo dagaya maskiin kasta oo xoogaa danaynaysa. arrinka kanna waa u muhiim qof walba, gabadh kasta iyo wiil kastaba. gabadhan waxay ku imtixaanayd internetka iyo aaladahan la isticmaalo. waxay ahayd sida ay maanta yihiin kuwa badan oo dhallinyarteenna ka mid a ama dhammaanteen baanu nahay oo aaladahaas ku maman. waxay gabadhan jeclayd inay ku guulaysato xiriir ay wiil la samaysato. wakhtiyadeeda khadka iyo internetka aaladaha kala duwan la isticmaalay ayay ku dhumisay, ayadoo raadinaysa qof ay barato, ayadoo ku gudanaysa wakhtiyadeedii waxaa loo yaqaana romansi ama xiriirada noocaasa. laakiin wax lala yaabo ayaa dhacay oo arrintaasii sababtay. gabadhan muhiimadeedu ma ahayn oo aan ka ahayn inay hesho wiil danaheeda guda jacayla wada jilaan siday dhahaan, wiilkaas oo dhagaheeda maqashiiya hadalla jacayla, kaftana, shukaanshi ah, xodxodasha iyo wixii la midka. maalin maalmaha ka mida waxaa u xaqiiqoobay arrintii ay jeclayd. wiil bay isbarteen. wiilkaasi ayadoo isleedahay tilmaamaha raadinaysay ayuu leeyahay. sidaa darteed wiilkii waa soo jiitay gabadhaas weliba muddo yar oo kooban. waxaa dhex maray hadallo kala duwan. waxay ku sheekaysan jireen fideoga ay isku furaan siday maanta isku shukaansadaan in badan oo ka mid a dadkeen, weliba wakhtiyo kala duwan. habeenkiibay isku dhafri jireen ayagoo fideogaas waxay rabaan kaga hadlaya. ehelkeeda mayso ogeyn, hooyadeed lama socoto xaaladeeda, waayo kalsooni xeel dheer oo xad ka dhaaftay ayay siiyeen. markay dheeraatay wadahadalka iyo sheekaysigii kuna daaleen, waxay isku raaceen oo go-aansadeen inay arrinka kasii horumariyaan sidaan oo ay kulmaan si jacaylkooda u sii siyaado sida ay dhahaan. gabadhii waa baxday say wiilkaasi oola kulanto. bilowgii kulankaas waxay ku kulmi jireen meelo dadku ay ku badan yihiin sida maqaaxiyaha iyo waxa la midka ah. laakiin wakhti kadib kulankii wuxuu isu bedelay in lagu kulmo meel cidla ah. maalintii dambe waxay ku kulmeen guri oo wiilka deganaa oo cidla ah ayaa ka dhacday. laakiin arrin xun baa dhacday oo dhex martay. waxay sheekaystaan oo istaataabtaanba shahwadoodii baa kacday. xaqiiqada dhallinyarteena dhex taalla maanta. waxay sameeyeen wixii ilaahay reebay. xumaantii faaxishadayd bay ku dhaceen, zina ayay sameeyeen. arrintaasna way dhacaysaa lagaba maarmaan sida aqlabka, waayo rasuulka ilaahay baa noo warramay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi nin iyo haweenay ajnabi kale ah meel kuma gooni noqdaan oo iskuma helaan ilaa shaydaan baa saddex ku noqda, wuxuu rabanu ka dhex ridayaa. wiilkii wuxuu sameeyey arrin ay in badan wiilashu sameeyaan. xumaanta uu gabadha ku sameeyey bikradeedii uu jebiyey, gabarnimadeedii uu baabi'iyey. waxaysan filanayn oo ay samaysay. iyadoo waxaa laga yaabaa jacaylka ay jeclaatay iyo danayntay danaynaysa inay ka tan badatay, laakiin waxaa loo qorshaynaysa la socon markuu gabarnimadeedii jabiyey. taasna uu ogaaday ismaba murjinba. dhakhtar ay is yaqaaneen buu u geeyey gabadhii. wuxuu yidhi gabarnimadeedii ku soo celi. dhakhtar buu geeyey si dhakhtarkaas u soo celiyey gabarnimadeedii sideeda hore say u ahaato oo aysan ehelka u fahmin. gabadhiina arrintaas waa yeeshay in lagu sameeyo. laakiin wax ku dhow 2 bilood kadib waxaa gabadhii kasoo daahirtay oo kasoo muuqatay calaamadihii uurka. shaki baa ku dhashay qoyskii gabadhaas. hooyadeed baa baartoo weydiisay. hooyadeed markay baartay waxay ogaatay gabadhan in gabarnimadeeda u jirto, laakiin waxay la yaabeen uurkan xaggee uga imaaday. sidee bay uur qaaday? weli gabarnimadeeda u joogtaaye. laakiin ciyaartu intaa kumaysan dhammaan. wiilkii iyo gabadhii waxay ku heshiiyeen inay u tagaan sheekh ama wadaad xume oo wax qarqariya. gabadhii iyo hooyadeed baa israacay. wadaadkaasay u tageen. wadaadkiina sheeko shaydaan buu sheegay. wuxuu yidhi shaydaan baa taabtay gabadha, jin baa uureeyey. waana arrin horey loogu heshiiyey taas. hooyadii waa rumaysatay, miskiinta ahayd. hadalkaasay qaadatay, gabadheeday u murugootay. laakiin ilaa iyo hadda wiilkii sidaasi kuma harin. wuxuu ku khasbay gabadhaas inay xoolo siiso, lacag u keento, waayo wuxuu aaminsan yahay ceebta iyadu inay fuulayso. wuxuu leeyahay waa ku ceebaynaya haddii kale lacag isii. waa bulshadeena siday maanta aaminsan yihiin. maxaa gabadha keliya xumaanta saaray? waa dhaqan liita wey oo ka dhana dumarka. hase yeeshee dhaqankaas isagoo aaminsan qisadii muusa dhammayn. gabadha wuxuu yidhi maalin kasta xoola ii keen. wuxuu kaloo ku yidhi wax kastoo aan kaa doonaya waa inaad yeeshaa. waxaasoo xataa uusa damiirku yeelayn ayuu wuxuu yidhi wax kasta waa inaad ii samaysaa. gabadhu markay arrintaa ku daashay muddana ay waday, waxay ogaatay nolosheedu inay tahay nolol shaqaalo oo keliya. markii dambe waxay guda gashay wiilkaas dalabaadkiisa iyo wax kastoo doonaya inay diido, waxayna ka dalbatay inuu ka fogaado. laakiin war kale ayuu keenay wiilkii oo wuxuu yidhi fideogan fiiri, waxaan samaynaynay weye. adoo qaawan baa kaa duubay, adoo sidaasaan kaa duubay ee ha is adkayne caadi iska dhig. waa siday yidhaahdaan. wixii ka dhacay ayuu soo duubay iyadoon ogeyn. waa maanta dhallinyarteenna qaar ka mida waxay sameeyaan ama in badanoo ka mid ah. gabadhii waa iska yeesha waayo dantaa ku khasbaysa. laakiin muddo yar kadib arrin wixii hore o dhan ka xun ayuu keenay wiilkii oo wuxuu yidhi waa inaan israacnaa, waa inaad saaxiibaday ayaguna kuu tagaan oo ay ku isticmaalaan. yaa subxaana allah. gabadhii arrimahaas ayaa lagu sameeyey.
maalinba maalinta ku xigta ilaa ay maalintii dambe diiday oo ay tiri waxaa rabti samee markay soo dhowaatay dhalmadeedii arrintaa kasii daran baa dhacday noloshii bay nacday gabadhaas sabab baynu ahayd barashadaa xun ee aynu tilmaannay sida ay kusoo bilaabatay gabadhii markay dhalmadeedii soo dhowaatay isbitaalkii baa la geeyey kadibna sariirtii ayay isku dishay waayo waxay aragtay waddooyin kastoo noloshaan ay ku kasban lahayd inay ka soo xidhantay sidaasayna ku dhimatay qisadaasna waa ka tagtay si ay cibro ugu noqoto kuwo badan oo dhallinyarteedna ka midanoo maanta nool rumaysaha maaha rumaysan qisadan laakiin waxaan ku leeyahay walaalle shaydaan waddooyinkiisa raaci gabadhi ay iska ilaali ragga fitnadooda wiilyow iska ilaali dumarka fitnadooda sidaad u dhaqantaa lagugula dhaqmayaa wiilkan gabadha xumaanta ku sameeyey wuxuu mooday in arrintaas uu ku sugayo raganimadiisa dadkana uga soocan yahay oo haliyey ku yahay sida dhallinyaro badan ay ku faanaan heblaayo uurayey heblaayo sidaa u tegay heblaayo ka tegay heblaayo furay sida maanta loo yidhaahdo ninka noocaa sameeyey inuu yahay nin rageed laakiin arrintu sidaas ma ahan waa idinka dhunsan tahay xaqiiqa ahaan rag badan ama wiilal badan waxaasoo kale ay samaynayaan ayagoo ismoodaya inay rag yihiin laakiin ma oga cadaabka sugaya laakiin gabdhayo waxaa idin leeyahay albaabada sharka aad isku furaysaan ee ragga maanta jooga ay idinkaga soo gelayaan iska xira wixii ilaahay kuu qoray gurigaada ay kuugu imaanayaan oo wanaagsan oo calaf in badan inaad wax ka fahantay ayaan filayaa qisadan in badanoo ka mid a idinka waxaa laga yaaba inaad tidhaahdaan gabadhan ninkaasay dhibano u ahayd laakiin ayada laftirkeeda waa khaldantay waayo ninkaas haddaysa albaabadeeda u furi lahayn dhibaatadan xanuunka badan mama geysteen marka waxaa idin leeyahay arrimaha noocaasa ka digtoonaada qoys walbana waxaan leeyahay gabdhihiinna ilaalsada oo xifdiya wax keenaya ma jiro inaad tidhaahdaan gabadhayda waa ku kalsoonahay kalsooni buuxda adinkoo dayacay intaysa tala ku dhaafin waxaan ku leeyahay ishagaaji su-aasha idinla wadaagaya waxay tahay qofkeebaa khaldan ma wiilka mase gabadha keebaa ficil xun ma wiilka mase gabadha ugu dambayntiina waxaa idin leeyahay wasaawista shayaadiinta iska ilaaliya waxaa sharcigan uu ku diiday ha samayn gabdhahan maanta noole wiilashu ka sheekaystaan ay dhexdooda isu sheegaan inay yihiin gabdho iyagoo xunxun oo meeshay rabaan ugu yeeran karaan sheekada noocaasa khilaafa sheekada noocaasa ka hor imaada gabdhayow sharaftiinna ilaalsada haddii kale wiilka waxaa kaa soo gaaraya qiso iyo arrin xanuun badan oo adduunyadaada iyo aakhiradaada dabagedisa waa mahadsantihiin jasaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu